Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. And dear students, I say welcome. So this is our 27th lesson where we talk about the verb to have. ardayda sharafta badan waxaan leeyahay kusoo dhawaada maxaan ku raadaya waa cashirkii 27aad maanta waxaan dhiganaynaa haddii la yiraahdo the verb to have. The verb to have waxa weeye ficil to have la yiraahdo wuxuuna ka mid yahay ficilada maxaan ku raadaya asaaska ah oo ardayga maxaan ku raadaya laga doonayo inuu si fiican u sugo marka ma dul mari doono insha Allah verb to have meel baan saari doonaa insha Allah si fiican baan u baran doonaa waxaan hore u soo dhiganay the verb to be oo cashiro badan aan ku soo qaadanay isticmaaladiisa kala duwan aan ku soo dhiganay marka verbkan waxa la yiraahdaa the verb to have marka waxaan ku bilaabaynaa the subject pronouns I you we they he she iyo it I waa aniga you waa adiga ama idinka we waa anaga ama inaga they waa iyaga he waa maxaa ku raadada isaga she waa iyada itna waxa la isticmaalaa waxyaabaha aan aqliga lahayn xayawaanada iyo waxyaabaha maxaan ku raadayay ashyaada kursiga iyo miiska wixii la mid ah ayaa loo isticmaalaa horaan u soo dhiganay the verb to be baan ku soo dhiganay marka saad arkaysaan have waxay u qaybsantaa have iyo has I you we they intaa waxay qaadanayaan have bay qaadanayaan I have you have we have they have I have you have we have they have he iyo she iyo itna waxay qaadanayaan has he has she has it has marka to have macnaheedu waa maxay to have macnaheedu waxa weeye waa haysasho ama lahaansho waxaad leedahay ama aad haysato marka isku midna way noqdaan kala midna way noqdaan hadoo kale waxaad oran kartaa gurigan aniga le wad oran kartaa laakiin ma oran kartid guriga anaa haystaa ma oran kartid guri lama haysto waa leeyahay bas laakiin telefoon hadaad haysato waxaad oran kartaa telefoon ayaan haystaa telefoon ayaan leeyahay inaad haysato ka dhalan mayso inaad adu leedahay laakiin waxa suuragal ah inaad leedahay aad haysato iyo inaad leedahay aanad haysan marka inta way noqonaysaa waxyaabo qaar baa jirta lahaansho loo isticmaalo aan haysasho loo isticmaali karin iyo waxyaabo labadaba ogolaanaya hadoo kale walaalo dad tira walaalan leeyahay saddex walaal baan leeyahay ma oran kartid saddex walaalan haystaa ma oran kartid marka lahaansho ku fiican tahay marka waa lahaansho iyo haysasho labada macnaba to have way qaadataa labadaba way leedahay way qaadanaysaa marka cashirkan guda gallo I have waxa weeye waxaan leeyahay ama aan haystaa you have waxaad adu leedahay ama aad haystaa ama waxaad leedihiin ama aad haysataan we have waxaanu haysanaa ama waxaanu leenahay they have iyagu waxay haystaan ama waxay leeyihiin he has isagu wuxuu haystaa ama uu leeyahay she has iyadu waxay haysataa ama ay leedahay it has iyadu ama isagu wuxuu haystaa ama uu leeyahay ama ay leedahay marka aan bilowno I have a car and a house I have a car and a house waxaan leeyahay gaadhi iyo guri I have a car and a house marka isticmaal badan baad gelin kartaa I have a pen and a book I have a brother and a sister I have a cup and a spoon I have an uncle and an aunt marka isticmaalkeeda way badan tahay isticmaal fara badan maxaan ku raad u samee you have three brothers adigu waxaad leedahay saddex walaala oo inama waxaad kala oran kartaa you have three brothers idinku waxaad leedihiin saddex walaalaad leedihiin brothers waa walaalahaaga inamada ah walaalahaaga wiilasha way three brothers you have three brothers we have a big house waxaanu maxaan ku raadaya leenahay guri weyn ama waxaynu leenahay guri weyn we have a big house a big waxa weyn weeye house guri weeyaan we have a big house they have good character marka character qalin yar xogaa yaro casaana bunni abaan ku qoray wareedaas leeyahay dabcan waxa suuragal ah arday qaar aan garaneyn marka aan dulmaro character waxa weeye dabeecad character waa dabeecad iyo akhlaaq weeye marka qofna dabeecad xun buu leeyahay qofna dabeecad xun buu leeyahay marka good character waa akhlaaq iyo dabeecad wanaagsan bad characterna waa dabeecad iyo dabci xun they have good character marka character waxa loo isticmaalaa to have baa loo isticmaalaa
they have good character iyagu waxay leeyihiin dabci wanaagsan iyagu waxay leeyihiin dabci wanaagsan they have good character he has many shops shop waa dukaan markay badihiin asbal raacinaya waxay noqonayaan shops he has marka he waxay qaadanaysaa he has many shops many waxa way fara badan many shops dukaamo fara badan he has many shops isagu wuxuu leeyahay dukaamo fara badan she has a caring uncle caring waxa way daryeel badan way daryeelis badan uncle waa adeer ama abti labadaba way noqonaysaa she has a caring uncle iyadu waxay leedahay adeer daryeelis maxaa ku raday wanaagsan adeer iyadu aad u daryeela oo wanaajiya oo maxaa ku raday aad u dhaqaaleeya ayay leedahay she has a caring uncle and it's good to have a caring uncle it has a long tail waxa weeye dib ama sen hadba saa u taqaano it has a long tail iyadu waxay leedahay dib dheer ama sen dheer haddoo kale bisad baa laga hadlaya ama ey baa laga hadlayaa maxaa ku raday dib dheer ama sentiisu ay dheer tahay it has a long tail long waa dheer wey long waxaa loo isticmaalaa waxyaabaha dhulka yaala waxyaabaha dadban baa loo isticmaalaa shayga hadduu qotamo long lama yidhahdo waxaa la yidhahdaa tool baa loo isticmaalaa tool haddoo kale geedka kale waxaa la odhanaya a tall tree waa geed maxaa ku dhahay a tall tree baa la odhanaya geed dheer baa la odhanaya a tall tree laakiin shayga suunka oo kale ama xadhiga ama maska waxyaabaha dadban oo maxaa ku dhahay aan qotonayn waxaa loo isticmaalaa long it has a long tail and waxay leedahay dib dheer haddii bisad laga hadlayo ama wuxuu leeyahay dib dheer haddii laga hadlayo maxay bisad haddii laga hadlayo ama ey laga hadlayo idhaahde Mohammed halkan eeg marka magacyada marka laga hadlayo magacyada laba loo qaybiyaa intaan kasoo hadlayna magacyaalooyin bay ahayeen magacyaalooyin English waxaa lagu yiraahdaa pronouns baa lagu yiraahdaa magacyaalooyinka qaybo kala duwan insha Allah mustaqbalkan dhigan doona kuwan waa magacyaalooyin magaca markuu maqan yahay ay magacii booskiisa ay sii xajiyaan laakiin magacyada caadiga marka la isticmaalayo Mohammed iyo Ahmed iyo Safiya iyo Maryam marka magacyada caadiga la isticmaalayo magacyada caadiga laba loo kala qaybinaya markii badan yihiin iyo marka ay hal qof yahay hadoo kale Mohammed oo kale hal qof weeye Mohammed Ahmed Ali Hussein Samatar hal magac markuu yahay wuxuu qaadanayaa has Mohammed has Ahmed has Maryam has Ali has Fatima has markuu hal magac yahay has buu qaadanaya laakiin magacyadu haday badan yihiin oo kale kama soo qaad Mohammed iyo waxaan yiri Mohammed and Farah Mohammed and Usman Maryam and Khadija marka half bay noqonaysaa wixii hal ka badan wuxuu noqonaysaa half bay qaadanayaan magacyada caadiga marka laga hadlayo weeye markuu hal qof yahayna wuxuu qaadanayaa has Halima has and Fathi has Mohammed has 3 pencils pencil waa qalin qoriga ama qalin pencilka weeye 3 pencils saddex maxaa ku dhaca pencil ama saddex qalin qori Mohammed has 3 pencils Mohammed wuxuu haystaa saddex qalin qori ayuu haystaa Mohammed has 3 pencils Mohammed has 3 pencils the farmer waa nin beeraley weeye ninka beerta maxaa ku dhaca sameeysta ee beerta ka shaqeeya weeye oo beerta leh farmer markay badihiin asbal raacnaya Englishka marka shay la doonayo in jamac laga dhigo ism baa la raaciya the farmers beeraleyda have beeraleydi da'dan waan dhigan doonaa isna insha Allah the farmers beeraleydi have waxay leeyihiin a meeting shir bay leeyihiin meeting waa shir ama kulan weeye the farmers have a meeting beeraleyda waxay leeyihiin shir marka farmers maadaama ay jamac tahay maxay qaadanaysaa half bay qaadanaysaa hadduu mid kaliya ahaan lahaa farmer asta aan ila socon tan waxay noqon lahayd has bay noqon lahayd the farmer has the teacher has marka hal shay marka hal qof marka laga hadlayo ama shay waxay qaadanayaan has bay qaadanayaan laakiin markay badan yihiin waxay qaadanayaan Allahu musta'an have the farmers have a meeting beeraleyda waxay leeyihiin shir bay leeyihiin the farmers have a meeting marka the teachers have a meeting macallimiinta waxay leeyihiin shir and the sisters have a meeting walaalaha waxay leeyihiin shir bay leeyihiin hablaha aha and our uncles have a meeting adeeradana ama adeerada waxay leeyihiin shir bay leeyihiin
and the managers have a meeting. maamulayaashu waxay leeyihiin shir iyo wixii la mid ah. everyone waxa weeye qof walba wey. hore casharo hore kusoo dhiganay everyone qof walba ama qof kasta. everyone here has a lot of money. money waa lacag. marka eeg money halka waxaan kusoo marnay many fara badan wey. many tan laakiin waa wey. money lacag wey. a lot of money waa lacag fara badan. everyone here waa halkan wey. waxaa kasoo horjeeda there oo halkaas ah, meel kaa fog. here waa meel ku dhow. everyone here qof walba halkan has a lot of money. qof walba halkan jooga lacag fara badan buu haystaa. dadka halkan jooga waa dad maxaan ku dhahaa hantiilayaala lacag fara badan haysta weeye. everyone here has a lot of money. qof walba halkan jooga wuxuu haystaa lacag fara badan. everyone here has a lot of money. no one has a reason to do this. reason waa sabab wey. no one waa cidna. no one has a reason. cidna ma haysato sabab to do this. maxaan ku inay waxaan sameeyaan. cid sabab u haysataa inay waxaan sameeyaan ma jirto. qof baad aragtay, dad baad aragtay wax sameeyey, dadana ud cadhaysantay waxaad oranaysaa no one has a reason to do this. cidna marka no one has bay qaadanaysaa oo sadarkiisaan. everyone waxay qaadanaysaa has. everyone waa has. no one waxay qaadanaysaa has. no one has a reason to do this. cidna sabab ay waxaan ku samayso ma haysato. sabab ay waxaan ku samayso. waxaan dabcan waxaan sax ahayn. my teacher has a nice laptop. my teacher marka teacher hal qof weeye, hal macallin weeye. teacher macallin weeye. has buu qaadanaya. haddaan halkan s raacino my teachers halkan maxay noqonaysaa ishag waxay noqonaysaa have. sida halkan oo kale the farmers have. my teacher maadaama hal macallin uu yahay wuxuu qaadanayaa has buu qaadanayaa. my teacher has a nice laptop. nice hore usoo dhigana nice fiican weeye ama wanaagsan. marka laptop wanaagsan, laptop maasha allah ah ayuu maxaan ku dhaha macallinkayga haystaa. my teacher has a nice laptop. macallinkayga wuxuu haystaa laptop wanaagsan. my teacher has a nice laptop. so let me read all of them once again. I have a car and a house. You have 3 brothers. We have a big house. They have good character. He has many shops. She has a caring uncle. It has a long tail. Muhammad has 3 pencils. The farmers have a meeting. Everyone here has a lot of money. No one has a reason to do this. My teacher has a nice laptop. marka walaalayaal waxaan ku raacay cashirka halkaa buu noogu eegyahay hadduu la yidhaahdo. marka waxaan idinka codsanaya cashirka insha allah inaad si fiican u dhegeystaan, aad qortaan, aad ku celcelisaan, jumlado kale aad samaysaan oo xagga commentka kusoo qortaan. and subscribe saara maxaan ku ardada walaalaha maxaan ku doonaysa in English bartaan iyana la wadaaga hadduu la yidhaahdo. and I'm gonna end my lesson there and I leave you with assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Till we meet next time, I say bye bye.